kubadda cagta waa meesha kaliya ee hadda laga sameeyo dhaqaale. waxaa sidoo kale ku jira shakhsiyaad magac ka sameeyey lacag fara badanna ka sameeyey ciyaarista kubadda cagta. warbixintan waa qaybta koowaad sheeko aan cinwaankeeda ka dhignay ma og tahay in mashruucyo kale oo lacag lagu helo lagu fuliyo garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta. waxaadna kala socotaan qaraaxa tube. fadlan subscribe dheh, like saar, una sheer garay asxaabtaada si aad u heshaan waxyaabihii ugu dambeeyey kubadda cagta iyo sheekooyin kale oo la xiriira ciyaaraha. kumanaan qof ee daawada ciyaar kubadda cagta ah ama ciyaar si live ah u socota kuna sugan gudaha garoonka waxa ay ku soo galaan lacag ama lambar la jarto oo loo yaqaano tikid. waxaana loo kala xushaa tikidhadaasi hadba booska aad ka jeceshahay garoonka. haddaba waxaan kuu soo gudbin doonaa qaabka ay garoomada kubadda cagta caalamka ay lacag u soo saaraan. qaybta koowaad waxaan ku soo qaadan doonaa tikidhada. tikidhada waa meesha ugu muhiimsan ee lacag laga sameeyo gudaha garoonka amaba garoonka kubadda cagta lagu ciyaaro. keliya ma ahan meesha keliya ee kubadda cagta lacag ka soo gasha kooxaha ciyaartooyda ama xiriirka. tusaaloo kale ciyaar walboo la daawado waxaa la iibiyaa 70,000 oo tikid ama lacag u dhow. tusaaloo kale garoonka Manchester United ee Old Trafford oo qaada 75,643 qofood, taas oo ka dhigan in 75,643 kuraas taala garoonka faca weyn ee Old Trafford dhammaan lagu soo galo tikidho. Manchester United ayaa tikidkeeda la iibiyaa €20. sidaas darteeda waxa ay ka dhigan tahay in 75,643 qofood oo soo gashay ciyaar toos ah oo ka socota garoonka Old Trafford qofkiiba laga qaado €20. lacagtaas waxa ay u dhigantaa 1.5 milyan ama 1 milyan iyo bar ayay u dhigantaa lacagtaas. 2013-2014 xil ciyaareedka la yiraahdo Manchester ayaa 191 milyan soo xareysay xil ciyaareedkaas oo dhan, taas oo noqotay lacag aad loogu faa'iiday. kama dhigna lacagtaas oo dhan 100% inay tahay lacagta faa'iidada. waxaa loo qaybinayaa qaybta amniga, booliiska, shaqaalaha caafimaadka, kooxda inteedii kale iyo sidoo kale inay kooxda ku qarash garayso waxyaabo kale. waxaa sidoo kale jira in kooxo kale oo ku yaala magaalada ay ku kala duwan yihiin wax soo saarka. hadba waxaa loo fiiriyaa inta qofood ama inta shakhsi ee ku nool magaalada ay ka dhisan tahay kooxdaas. tusaaloo kale kooxda ugu yar ee lacag soo saarta amaba garoonkeeda lacag ay ka hesho waa kooxda kubadda cagta ee Bournemouth. taasi waxaa u sabab ah Bournemouth meesha ay ku taalo waa meel aad u yar ama dadka degan. Vitality Stadium garoonka la yiraahdo 12,000 oo taageere ayaa soo gasha. 1.5 milyan ayuu shaqeeyaa sanadkii, taasoo ah inta ay Manchester soo saarto hal ciyaar gudaheeda. sidaa darteeda si ay u soo saaraan lacagta sanadlaha ee kooxda kubadda cagta Manchester United garoonkeeda oo Trafford uu shaqeeyo waa in halkii tikid ay Bournemouth iibisaa €125. taasna waa lacag aad u qaali ah, mana jirto qof intaas ku iibsan kara. sidaa darteeda kooxda kubadda cagta Bournemouth iyo United waa tusaalaha keliya ee qayb ka mid ah sheekadan aan u soo qaadan. sidoo kale kooxaha waxa ay faa'iidi karaan lacago ka bannaan garoonka sida xuquuqda TV-ga, xayeysiimaha ay sameeyaan iyo weliba waxyaabo kale oo ku lifaaqan ciyaartaasi. waad ku mahadsan tahay daawashada warbixintan, waana qaybta koowaad sheeko aan cinwaankeeda ka dhignay ma og tahay in mashruucyo kale oo lacag lagu faa'iido lagu fuliyo garoomada lagu ciyaaro kubadda cagta.